boqolaal kun oo qof oo ku noolaa Israa'iil ayaa doortay in ay ka baxaan oo ay badbaado u raadsadaan meelo kale. Tirooyinka rasmiga ah ee Israa'iil ayaa muujinaya isbeddelka soo galootiga rogaal celiska ah uu koray heer aan la arag muddo 10 sano ah. 30,000 oo Israa'iiliin ah ayaa si rasmi ah ugu qaxay Israa'iil si ay u raadsadaan nabadgelyo. Haddaba warar hoose ayaa sheegaya in Israa'iil ay qorayso dhalinyaro Afrikaan ah si ay ugu qayb galaan dagaalka Hamas. Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay gudaha maamulka Israa'iil iyo shacabka ayagoo muujinaya in Benjamin Netanyahu uu yahay col ooga doonayo in uu khalkhal geliyo nabadgelyada Israa'iil. Warkan ayaa imaanaya xilli Israa'iil ay sheegtay in hub nooca qatarta ah oo ay leedahay Ruushka ay isticmaasho Xisbullah. Xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa xaqiijiyay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi la geeyay Ruushka maalmo kadib markii sirdoonka militariga Ukraine ay diiwaangeliyeen joogitaanka cutubyo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ee ku sugan gobolka xadka Kursk. Militariga Ukraine ayaa ka howlgalaya gobolka Kursk tan iyo markii ay duulaan ballaaran ku qaadeen bishii Agoosto. Rutte ayaa Isniintii sheegay in tallaabadani ay ka dhigan tahay kor u kac weyn ku lug lahaanshaha Pyongyang ee dagaalka sharci darrada ah ee Ruushka ee Ukraine, jebinta qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ballaarinta qatarta ah iska horimaadyada. Iskaashiga militariga ee qotada dheer ee u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa qatar ku ah amniga Indo-Pacific iyo Euro-Atlantic labadaba, ayuu Rutte u sheegay suxufiyiinta kadib markii saraakiisha NATO iyo diblomaasiyiinta ay warbixin ka siiyeen wafdi ka socday Kuuriyada Koonfureed. Barnaamijka sportigana waxaan ku eegi doonaa Rodri oo xalay la guddoonsiiyay Ballon d'Or markii ugu horeysay oo ciyaaryahan Man City ah uu ku guuleysto Ballon d'Or-kaasi. Haddaba barnaamijkan iyo Ballon d'Or-ka xalay waxaa noo haya waryaheena Qoraysha Cali. ciyaaryahanka qadka dhexe ee Manchester City iyo xulka Spain Rodri ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or oo la guddoonsiiyo ciyaaryahanka ugu fiicnaa sanadka. 28 sano jirkan ayaa hal kulan oo qura laga badiyay xilli ciyaareedkii hore isagoo u ciyaaraya koox iyo wadan, waana ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Spanish ah ee ku guuleystay abaalmarinta ragga tan iyo 1960. waana ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Premier League ah ee ku guuleysto abaalmarintan tan iyo Cristiano Ronaldo 2008. Rodri oo ka caawiyay Spain ku guuleysiga Euro 2024 bisha Luulyo ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyay Paris Isniintii. Waxa uu sidoo kale City kula guuleystay Premier League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup. Daawadayaal, barnaamijka maanta waa naga inta. Aniguna waxaan ahay Xasan Ayman.